waxaa sharaf ii ah maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Oktoobar 2012 in aan helo kalsoonida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in aan ummadda Soomaaliyeed u qaado xilka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taasoo ah mas'uuliyad ballaaran oo aan rajaynayo in aan u guto si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin dalkeen waxa uu marayaa marxalad taariikhi ah oo u baahan aragti istiraatiijiyadeed oo ku salaysan horumarinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed iyo qorshooyin siyaasadeed ee cadcad isla markaana ay horkacayaan tiim hufan oo aqoon iyo karti u leh hirgelinta iyo himilooyinka ay hiigsanayso ummadayadu mudanayaal iyo marwooyin mudanayaal iyo marwooyin waxaan ballan qaadayaa inaan soo dhiso muddo kooban xukuumo tayo leh oo u horseeda dalka nabad iyo horumar taasoo ku imaanaysa wada tashi aan la yeelan doono madaxweynaha xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin qorshaha siyaasadeed ee xukuumadda aan soo dhisi doonaa waxaa saldhig u noqon doona tiirarka 6 ahaa ee uu ku baaqay madaxweynaha jamhuuriyaddu xukuumaddu waxa ay noqon doontaa mid aan u dulqaadan doonin musuqmaasuqa eexda iyo wax isdabamarinta mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaan ballan qaadayaa in xukuumadda aan hogaamin doono ay dhinac iska dhigi doonto khilaafkii ragaadiyey xukuumadihii naga horreeyey isla markaana dib u dhac ku keenay waxqabadka laga filayay waxaan idinkaga mahadnaqayaa dhammaantiin ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladan waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa madaxweynaha ra'iisul baarlamaanka prime ministerkii hore xubnaha golaha shacbiga iyo howlwadeennada kala duwan waxaana mar labaad idiin ballan qaadayaa inaan diyaar u ahay tabartaydu meeshay i gaarsiisayba inaan u huro naftayda iyo awoodaydaba badbaadada Soomaaliya isbeddelka iyo midnimada Soomaaliya oo dhammaantood maanta si aad ah loogu baahan yahay